وأنا هذا قفر حسنا ما أنت إني تهمالين ولا يسكيل يميزان كذا يسكيل وحار إلهي يخفضي ومدحونا الشيخ شريف الشيخ أحمد يا عبد الرحمن شكور هذا بان وفر حسنا ما أنت إني كسر دوي فعلا ذاك اسمه قرون كان شغلنا ولو الشيخ شريف وأنا هذا كسر دويني مع الموضوع الإسلام بيكشري وحن كقا سوق قالنا إنه قرون كتشوي أو نكان نقولنا وعلينا ما أنت حرسي قاس فرمي سيانا أوها إلى يسلو وحوي ما دام طلعوا دي جيسي لماذا لا يدي يسوي سكو دين والد يسوي هذا دوينه وفتي يجي كل جود حل معنا هذا بدون يعيش حزبية سنة الرضا يقول هنا قرار كلا بالشرع اللي السعودية وحلا كسر دوالة ديان كيني كسر دوالة كسمايو كافيصة كسر دوالة يضع لو يمد سكتير بدنا بدن ما على مسار كلي لو يمد حلو يمد اللي سوي ماده إلا حلا ولا حلا إلا تشاده إلا يسعركه وحلا يسويديو حاجة نسعنا إن السلاح وحاليات مهمة ما أنت وحنا سلاح سومالي وقتها تلاقوا بهانتاي ما هنا صومالي وما أنت وقتها تلاقوا بهاناي إنه يتشتوا يتراضوا وليه مالي كذي مركب على ما أنت ضد كذي باتي سكان صاحب هذا يوحي لصومر يوحنا لصومر كله وانقرنا تاسان دلله هو هذا لو يدم بين دونا فحين الشيخ شريف كسر دو عبد الرحمن قدوم كسر دو أبان إذا كان ما هذا يعني الكاسو ما كلام شيء دونا وكتير هذا ما زلت سلام على الحضور هورت وين سلام يا يدوينها سيد شرفتي iyo qadarinta iyo milgaha iyo maamuus kale noo soo dhaweey intaba runtii in badan aan ku taameeyay inaan nimaadno magaaladan la cuna qabatay lana jabiyo xisaarkeeda waxaan ku faraxsanahay maanta in cuna qabatayntii ay jabtay oo maaragtay dadkii dhammaan halkan isugu yimaadeen waana ku raacsanahay madaxweynaha waxa la isugu yimid cala masaar kaliya maaha siyaasadda Soomaaliya dadkeedii indhar garadka ahaa ama wax garadka ahaa ama wax ka soo maray ama wax ka soo qabtay oo dhan isku yimid waxaan rajaynaynaa marka in arrintu cala masaar ay dhaafto oo wixii tala ah iyo dan wadaag Soomaali ku saabsan aayaheeda iyo masiirkeeda meesha ay maraysana maanta ay ka dhacaysana waa loo jeedaa waxaan rabnaa marka horaan u bilownay Soomaali hore u soo waday in aayaheeda ay gudaha ay uga tashato meeshii ay dalka banaankiisa uga tashay jirtay haddii marka magaalada Kismaayo maanta ama Jubbaland ay noo martigelisay cala masaarkii madaxweynaha iyo wada tashigii ummadan isugu yimaadeen oo ka dhaxeeyay waa dhagax laba shimbir lagu dilay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadweynaha reer Kismaayo iyo hogaankooda oo ku adkaystay inaysan u nuglaanin xisaarka iyo cunaqabataynta looga faa'iideystay awoodii dawladeed iyo midii qaranka intaba aad iyo aad u bogaadinaynaa qof kasta oo xisaarkaas dhibka weyn ka soo gaaray inay jabiyaan waa bogaadinaynaa waa arintaas ku adkaystay waxaan rajaynaynaa in talo toosan iyo mid maaragtay wax garad leh intaba hadduu ilaahay yiraahdo ay meeshaan ay ka soo baxdo haddii noo dhamaado cala misaarka hadda nabigana wuxuu yiri unsur akhaaka daaliman oo madluuman marka nimankan walaalaheena talada hayana inaan sidii gacmaha loo qabo lahaa ayaga u gargaaraynaa sidii gacmaha loo qabo lahaa inaan ka wada shaqeyno ayada nafteedana meesha ku jirta waa mahadsantihiin salaam calaykum walaalkay madaxweyne Axmed Madoobe maxay ahaato dalkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur gudoomiyaha xisbiga Shariif Xasan akhyaarta kale Cabdikariin xildhibaanada sharafta leh runtii sharafay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan qaaliga ah waana ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran oo runtii walaalahan reer Jubbaland ay noo sameeyeen wax ku cusub ma waa wax u ah dhaqan markii ugu horeysay ma aha insha Allah markii ugu dambeysana ma noqon doonto waa idinku bogaadinaynaa horumarka aad sameyseen iyo dadaalkiina waa idinku hambaleynaynaa waa ka cudur daaranaynaa dawladnimadii aad jecleedeen oo aad dhinaciina ka dhisayseen aad u banaan baxdeen inaad ku dulmiyeen in mataqaanaa waxa laga shaqeynayay in dawladnimada cadaaladdeedu cid walba ay gaarto maanta waxaa nasiib darro ah cadaalad darradoodu meel walba inay gaarto
laga soo bilaabo magaalada muqdisho ilaa meesha ugu dambaysa laakiin waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad xura oo fahamsan waxa ka maqan iyo waxay rabaan inay yihiin fursad weyn ay noo tahay maanta gogoshaana loo fidiyey sida walaalkay madaxweyne Axmed Madoobe oo ka dhawaajiyey على مسار كلية معها يا عبد الرحمن با ووضتشي محايا لي ولو البدن عن كقبنا سيدو وحسو على صراحة أنا وحالي يقول تيريجري دتك آد متقانا دولد وقدو ومرة بدتك قعمها قبطو يرا ورا هلا دايو ما أنت أنا هدي حالة دو على سعودي صدن سنة كدب إن لو عليو نظام كريتاليس وأنا قولين شرعي وأنا قولين سومالي نمو وأن عد أو حرمين هاي أنا لا أركي رنتو أنا سيب در لكن وحا إلهي ما هديس إنا كولا براروكسن هاي هو ذا جوغنو ثلاثة هذا وضلين هاي سومالي ماشي جوغتنا أي ديارو تاني كقيب قادت وجعلنا دولة نمذا الشرع قينا احترامنا ربنا وحرمنا لكن دولة أنا احترامت وحيرنا نوع قرن مهم إنه يجي مدة ما يسترن وارهم لكن وحرمنا استجع اللجوء رغم سلوا قارب مدة ما يسترن وعنك وضع قيب قادم مركا مرة بنورنتي إن دولة نمذا يودنتو شرع يقول رغم واحد ضدك الصوماليات وحكوا ذا جوجين شرعكم ذا جوجين وحكوا ذا جوجين وحقوا ذا الشين والصومال نما أهل نما لكن وحرمنا إن اللجوء الشرعي وقت بدنا اللجوء سوء بحي دولة كوبادا لوجو دورت معها دولة دان ودولة لبعض لوجو دورت مركا ولكن حسن شيء واسجنا ما أنت رنت يجسوه اليوم هاد إلا رنت دورك في عنا وكقاته الدستور كان هدي على قفك كوبادا لوجو دورت أسجوا هاي وحن البلاد إنه قفك كوجوليستيها وكتجي سيدو كلو سمي مدحونا فرماج وكور رجي marka dastuurkii hore loogu dhaqmay maanta in la iska laalo oo la yiraahdo ma shaqeynayo annaga waxaan u aragnaa arrin khatar ah waxaan u aragnaa arrin aan la aqbali karin arrin aan indhaha laga qarsan karin qarannimadii dumaysana ma aamusi karo maxaa yeelay eed waan qabanaysaa mas'uuliyadaan qabanaysaa dad waaweyn aan meesha joogay marka qof walba Soomaali waxaan jeclaan lahaa inuu qalbigiisa ku qabto annaga waxa aan rabno inuu sharcigu sareeyo wax kale oo ma أفر سنة نكويسن حدو مركل جولستان نكويسن لكن وحرمنا شرع جنو سرايو دور شحولة أو حلالة أو سومالي وذا جوكتو وحسلون كير كرتين اعتماد تاسنا وحيكون ما كرتين للتشهد وهك دور شدة لو جلا يهب ولا جارة إيسا مستوى سنتان وحن كشقينا وحزبية وحن كشقينا وحواي تلقوا إنه أوريجو سيد ديمقراطية مركا international كان waxaan leenahay waqti badan ku soo bixiseen hanti badan ku soo baxday dawladnimadu adinku iska aamusan inay dushiina ku dunto wax la aqbali kara ma aha inaad qaybtiina qaadatiin oo aad ka soo baxdeen meelaha ku jirtiin anaga waxaan aaminsanahay laga maarmaanta anaga waxaan isleenahay shacabka beenta oo loo sacbinayo dawladda wuxuu xoojinayaa hareer marka iyo garab marka iyo burburinta sharciga taasna Soomaaliya ugu ma jirto marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadka wax garadka halkan jooga inay ka qayb qaataan wax taariikhi ah qof la nacabiya ma jirto qolana la nacabiya ma jirto annaga waxaan jecelnahay sharciga in lagu dhaqmo marka hadallada beenta umada lagu wareeriyo waxaan leenahay waxba soo ma kordhinayaan waxa loo baahan yahay waa dawladnimo taas aan isugu nimiday taas madaxweyne farmaajo asagoo 40 maalmood in ka yar joogo madaxweyne ku noqdo ku ixtiraamay walina waa ku ixtiraamayna haddana waa ku ixtiraamayna laakiin waxa muhiim ah sharciga in la ilaaliyo oo dawladdu ilaaliso marka ugu horeysa aad iyo aad ma santiin